dhulka aanu ka dagaalamayna waa dhulka Ogaadeniya ee ma aha dhulka Ethiopia talabaad waxa weeye Ethiopia muddo badan baa shacbiga Ogaadeniya iyo iyaga ay dagaal dhex socday dagaalkaasi wuxuu ka soo bilowday adduunweynaha dagaalkii labaad ee adduunweynaha markuu dhamaaday ka bacdi ilaa maalinka maanta dagaal ayaa socda gobonnimo doon ah dagaalkaasi wuxuu ahaa mid qori isu dhiiba oo shacbiga reer Ogaadeniya marra uusan isdhiibin way kala go'ahayeen halgamadu oo marmarka qaarkood halgan markuu muddo socdo wuu liicahayay hase yeeshee weligii shacbigaasi isma dhiibin halgankuna marra ma baktiin ma damin saas daraadeed shacbigaasi waxa uu doonaya waxa weeye inuu xaqiisa aaya ka talin helo ilaa uu taa helana halgankaasi uu soconaya Ethiopia marka dagaal aad iyo aad u adag iyaga iyo jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya dalka Ogaadeniya ku dhex socda halgankaasi maraaxil fara badan buu hadda soo maray maanta waqtigan la joogo goobaha dagaalka gacan sareynta ciidamada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa leh gacan sareynta goobaha dagaalka shacbiga reer Ogaadeniyana iyaga runtii taageera ciidamadaas iyagaana ciidamada wada saas daraadeed shacbiga iyo ciidamada iskaashaday gumaysigu hadda uu ka niyad jabay wuuna ka quustay in uu guul ka gaaro saas daraadeed gumaysigu wuxuu bilaabay siyaasad kale siyaasadaas oo odhanaysa in uu dad yacni afraada oo kala duwan in uu kasbado ama uu u yeedho in uu yidhaahdo waxaan idin siinayaa dhaqaale iyo lacag baan idin siinayaa nabadgelyo aan wada galno waxaa jiray urur waagi hore al-Ittixaad la odhan jiray waagan dambana noqday Soomaali galbeed ururkaas oo intii muddo ahayd aan wax culaysa Ethiopia aan ku haynin yaa sanadkan horaantiisa yaa waxay bilaabeen inay isdhiibaan ama ay isdhiibeen gumaysiga isu dhiibeen runtii yacni urur muddo soo dagaalamahayo inay gacmaha intay taagaan ay gumaysiga isu dhiibaan waa arrin aad iyo aad u foolxun waana wax laga naxo runtii hase yeeshee taasay noqoto way isdhiibeen markii horena gumaysiga wax culaysa kuma ayna hayn maxaa yeele wax dagaala muddo 10 sanad ku dhawaada ma ayna wadin saas daraadeed wax wada hadala oo Ethiopia la galeen ma jirto maxaa yeele qofku markuu isdhoobo cadawgu wada hadal inuu la galaba maba rababa maxaa yeele way isdhiibeenba marka gumaysigu wada hadal la geli maayo ruux isdhiibay marka ma jirto wax wada hadala oo qolada u socota taasi waa dhinaca kale jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ilaa ay yoolkeeda gaarayso oo ah shacbiga Ogaadeniya in uu helo xuquuqdiisii in uu aayihiisa isagoo ka tashado halgankana uu soconaya hase yeeshee halganku intuu socdo macnaheedu maaha inaan la wada hadlayn waa la wada hadli karaa annaga iyo Ethiopia waan wada hadli karayna laakiin sharti baa ku xidhan annaga iyo Ethiopia kaliya iyo inaan wada hadlo waa waxaan dhici karay sidoo kale wariyihii wareysigaasi qaadaya ayaa wuxuu gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya Admiral Maxamed Cumar Cusmaan weydiiyay su'aalo fara badan oo ay ka mid yihiin sida ay Ogaadeniya mustaqbalka dawladdu noqon karto iyo waxyaabaha u suurtagelin kara annaga waxa weeye ujeedada iyo shacbiga iyagu inuu aayihiisa ka tashado shacbigaasi hadduu rabo isaga gaar isu taagayo dawladdiisa gaarka ah samaysanaya maxaa yeelay dalku wuu leeyahay waxyaabihii dawladnimo lagu noqon lahaa oo dhan wuu leeyahay dhaqaale xoog luu leeyahay macaadin fara badan oo khayraad fara badan oo dhulka ku jira uu leeyahay xoolo badan buu leeyahay dad tiro badan buu leeyahay dhul beereed buu leeyahay degaan ballaaran wey wax alla wixii dawlad lagu noqon lahaa oo dhan dalka waa u dhan yahay marka dadkaas inuu gaarkiisa isu taago wuu heli karayaa insha Allah waanu ka guulaysan annaguna waanu ku kalsoonahay inaanu ka guulaysanayno dhaqaalaha ugu weyn iyo guusha ugu weyn waxa weeye waa shacbiga iyo doonistiisa shacbiga iyagu wuxuu ku kalsoon yahay inuu gumaysiga ka baxo diyaar uu yahay ciidamo adagna wuu sameeyay shacbigu ciidamadaasna iyaga hadda gumaysiga goobihii dagaal kaga adkaaday saas daraadeed shacbigu wuxuu rumaysan yahay inuu Ethiopia ka guulaysan doono rumaysan yahay dalka lagu dagaalamayo waa dalka iyagi waa dalka Ogaadeniya dalka lagu dagaalamayo Ogaadeniya waanu kaga adagnahay waanu ka xoreyn doonaa hadii aan la yiraahdo ma jirto wax kale oo ku qanci karo oo aan ahayn shacbigu inuu aayihiisa ka tashado waxa uu doonayo inuu isagu sheegto wax ka yar oo aanu ku qanci karaa ma jirto
su-aaluu tusaale usoo qaatay wariyihii waraysigani qaaday maamulka waqooyi galbeed Soomaaliya ayaa waxay ahayd Hargeysa waxay samaysatay maamul iyo doorashooyin welina lama ictiraafin marka idinka oo dagaal ku jira rajaynta leeg ayaad ka qabtaan inaad mustaqbalka ictiraaf heshaan Somaliland iyo anagu isku mid manay Somaliland waa dawlad Soomaali ah oo yani dhibaato hadda jirta bay ka mid tahay ee Soomaali haysata anagu dad la gumeystaan dad la gumeysto ayaanu nahay anagu dad la gumeysto hadaan nahay gumeysigu waa sharci buu leeyahay dalka Soomaaliya waxa qabsaday Ingiriis Faransiis Talyaani iyo Ethiopia saddexdii kala way tageen Ethiopia waa inay gumeysba waa inay tagto iyaduna wax kale oo ma taqaana halka ka iman kara male annaga ama hana la ictiraaf ama yaana la ictiraaf marka ka bacdi habkan adduunka oo noolaan lahayn waa wax kale way ugu dambeyntiina waxa kaloo wariyuhu gudoomiyaha u weydiiyay doorasho ku sheegtay 23kii bishii May ee naga tagtay Ethiopia ka dhacday inay ogaadeen ka dhacday iyo in kale Ethiopia kulligeedba wax doorashii kama ina dhicin sanadiiq waa la keenay meelana waa la geeyay qowmiyadaha kale dhammaan dagaal baa ka socda intaas oo meelo dagaal baa ka socda haddana doorashadii waxay ku dhamaatay 9.7 marka doorasho ma ayna ahayn doorasho kama dhicin runtii fadeexad bay ku noqotay iyagii baa runtii ka calaalaya hadii wax u dhaceen maxay wajigiiba ka fiiqday oo yani wax aan ahayn doorasho inay tahay adduun weynihiina u muujisay iyagiina ay ugu muuqataa ogaadeenina kama dhicin meel kale kama dhicin culimada Soomaaliyeed oo aad ugu xeeldheer aqoonta diinta Islaamka iyo xukuumadooda ayaa fatwo ay dhawaantood qabteen waxa ay si xigmadaysan oogaga hadleen kooxdii wayaanaha isu dhiibtay ee ka soo hadhay al-itixaadkii fashilmay fatwadan oo ay culimadu ku muujiyeen waxa ay diinta Islaamku ka qabto in la isu dhiibo xilli wadanka Ogaadeniya ka socdo dagaal gobonimo doona kaasi oo muddo dheer Ogaadeniya ka soo soconayay culimada oo sida ay shareecadu qabto oo fidiyooday arrimaha al-itixaadkii xarooday iyo sida aanay shareecada Islaamku u waafaqsanayn ayaa si taxane ah waxaad ogala socon doontaan Radio Xorriyo haddaba dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta koowaad ee barnaamijkani diiniga ah موضوع دنبيه كسابسنا التعليق على الأحداث الأخيرة والتصالح مع المقتل بأنه بالله ونعاون إن شاء الله تعالى ملاحظة لبعض آد عاوب بحلماقا وقال لها رفق حوينس موضوع كسابسين هاي وأقيدين قبل كان صومالي قلبين ليراده مرة قاركون أغادين يلغو إطلاقه صومالي ودكتب توبيا كترسن سحوب يا ود ملتري وغترسن هل جانب بدن با كسو سعون شري وتاريخ دير اسكاله علماء كتب بدن كقرين شغيران عبد الله كتابه كقري رحمة الله تعالى عليه شغيس وعيدوح كتابه كقري قضية قبل كاس يهلقن كيسي تاريخ ليسي وهذا ودنا الليل هنا حوض كجمع قوي تاريخ دارنا صوم مريض هلقن إن بدنا الدفاع وها صوماليا وبنبا إلى أن يتناد مدعين وسنولي وسنكبن كيسي يا كارين كيسي أصلي في هذا الدم بيسي لما أورو باكد دجاجة مجري قبل كا أورو في حاد كل أورين جري جناحي ونصف شيئا قبل كاس واجب الدم بيسي زعامة سوء قبيل إبراهيم شيخ محمد وحاكا لو كده قال لهم تري أروركي أنا لفلورين تري أما كان باقي كوة ودنكي لما يقول قيب سوال الشيخ شيخ إبراهيم بزعامتي كنت جيلي وادر إلى واجب الدم بيسي هذا إنه إليه شيئين بتوبيا
كنا ملعابين هشيس كاسي هدنو حبة زوجين تجي هدي اللي سهم ويجيب دقالك لغوص واللاباني هدي اللي لغسي وضحي يمكن أحداث مركب ودن بيسي دباق لي أما دقيساني أما متابعين وحاوم مقانيسة هوش هدنا من إيه وحروشو